السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي الشيخ محمد وين وإلى حالي وإلى فرسمة حيث مركا هذا لفتي ولي لما هو، لكن إن شاء الله هذا مركا دمه وشقين وفرسمة كلا وحنا ذيك سنة إن شاء الله جرانتيها وشقينه. waxaan rabaa inaan ka hadla hal qodob oo ku saabsan taariikhda Soomaalida oo ah 1977 dagaalkii Soomaaliya iyo dhexmaray Itoobiya waa culayska ugu weyn oo Soomaaliya hadda saaran in Soomaaliya adduunku la wareego ama dadka ajaanibta ah ay Soomaaliya la wareegaan. buundada loo soo maro waa Itoobiya. Kenya iyo Eritrea waa ku soo biireen. qolada gaal ka soo riixaysana hadda ka hor baan idin sheegay. marka Itoobiya waan isnaqaanaa. ilaa Axmed Gurey, ilaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, ilaa 1977 ilaa maanta waa dad isnaqaano oo isdagaal naqaano way. laakiin waxaa ku soo biiray Eritrea oo dhowr jeer Djibouti weerartay iyo Kenya oo hadda taagan inay Jubbooyinkii bad iyo biriba qaadato horena NFD u xalaashatay. marka waxaan rabaa taariikhdaas ujeedadan ka leeyahay aan ka sheekaynayo 1977 waxaan kala jeedaa inaan Kenya iyo Eritrea inaan baro Soomaaliya waxay tahay ma yaqaanaan, laakiin Itoobiyaanku way yaqaanaan. waxay sameynayaan kasbay u sameynayaan, laakiin waxa dhunsan oo na garanaynin waa Kenya iyo Eritrea. marka waxaan rabaa inaan cashar fiican maanta u dhigo. af Soomaaligana waa yaqaanaan Kenyaatu, waliba jawaasiistoodu waa yaqaanaan. oo hadda adduunka luuqadii waxaa la keenay wadan kasta inuu wadamada adduunka inta looga hadlo luuqada inuu dad jawaasiista u tababaro inay luuqada u bartaan. marka Itoobiyaanka jawaasiista ah oo dhageysta Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed ninkaygan hadlaya dhageysta warka taariikhdii aan ku dhinay 1977 idin galay dhageysta. adinka Kenya dhageysta haddaadna deyn weydaan oo badanada iyo Jubbooyinka iyo NFD soo celin weydaan. casharadan u qornay Itoobiya 1977 ayaan idin kuwa lamid ah idin qoraynaa. Eritrea adinka Ciisaha Djibouti iyo Canfarta idin ku filanba, xataa looma baahna ma taqaana Samaroon Siciid iyo ma taqaan Reesh Isxaaq xataa idima soo aadayaan. marka nimankaas aan waxaan rabnaa inaan ma taqaan maanta aan uga sheekeeyo jawaasiista Eritreaanka iyo Itoobiyaanka iyo Kenyaatiga oo Soomaaliga bartay ayaan waxaan rabaa inaan dhagahooda ku subo casharkii 1977. marka maanta waxaan soo qaadanaynaa, waxaan rabaa inaan dhowr kinin oo dagaalkii 1977 ku soo caanbaxay oo Soomaalida ahaa ayaan waxaan rabaa dhowr bari inaan ka hadlo. waxay isugu jiraan dagaalka horta guushiisa waa la wada lahaa, Soomaalida way wada lahaayeen shacab iyo dawladba. marka hadda golihii sare iyo Maxamed Siyaad Barre iyo Maxamed Cali Samatar oo wasiir gaashaandhigga ahaa dagaalkaas guushiisana qof ahaan ninka iska lahaa asaga uu yahay. Allah u naxariisto. siyaasad ahaanna Maxamed Siyaad Barre oo madaxweyne ahaa iyo golihii sare iyo Maxamed Cali Samatar oo madaxweyne ku-xigeenna ahaa markaas iyada wasiir gaashaandhigna ahaa. kaartada dagaalka iyo amarada iyo mataqaan saraakiisha la shaqeynaysan soo hogaaminayay waa la wada leeyahay guushaas, laakiin qof ahaan waxa iska lahaa Maxamed Cali Samatar. Allah u naxariisto. siyaasad ahaan wixii qasaara oo dagaalkaas naga soo gaarana qayb buu ku leeyahay maadaama wadanka madaxweyne ku-xigeen uu macnaha ka ahaa oo asagu wasiir gaashaandhig kaliya ma ahayn oo askariye madaxweyne ku-xigeenna wuu ahaa, golihii sarena wuu ku jiray Maxamed Cali. marka dhinacna wixii dhibaato oo siyaasadda qayb buu ku leeyahay, dhinaca guusha militarina asaga kow ka ahaa. marka dadkaas kama hadlay, waxaan ka hadlayaa janankii dagaalkaas macnaha ku soo caanbaxay iyo ninkii korneelka ahaa oo dagaalkaas ku soo caanbaxay iyo ninkii xidiglaha ahaa oo dagaalkaas ku soo caanbaxay iyo ninkii wariyaha oo asagoo askari ahaan shacab ah oo ahaa Axmed Xasan Cawke oo macruufka ah Soomaaliya oo Allah u naxariisto oo hadda ku dhiman jiray Jigjiga. Axmed Xasan Cawke wararka hadda Soomaalidu ay sheegayaan
oo weliba aad dad u badan ay sheegahayaan waxa weeye si assassination baa loo dilay oo Tigreegii baa dilay Etoobiyaanka ahaa oo dagaalkii 77 qaybtii uu ka qaatay oo codka iyo idaacaddii raadi Muqdisho ayay u dileen oo u dakanayaan sidaas dad badan oo Soomaaliya sheegayaan aniga laftaygu macnaha tuhunkaas ama warkaas waa aad baan u tuhmahayaa inuu tii Ilaahay u dhimatay oo iska dhintana way dhici kartaa laakiin waxa weeye dad badan ayaa waxay sheegahayaan oo ku darahayaan dad madax ah oo xataa maxamed barre ku jiro oo madaxweyne Cabdi Sharma ku jiro oo assassination lagu dilay oo cadawga Soomaaliya ay dileen inuu cawka ugu dambeeyay dad badan baa sheegay anigu marka arintaas aad bay madaxayga maankayga ugu weyn tahay in kastoo hadee wax hadda kitaab ku mari karo oo xaqiiqada haya macnaha anigu aan arkin laakiin aniga qof ahaan hadii la dhaho arintaas la sheegayo ma 50-50 ma dhahayo waxaan leeyahay 99% baan u qaba in Tigreegu dileen oo si assassination ama Soomaali hoo adeegsadeen ama askari ma taqaan sirdoona hoo adeegsadeen laakiin Tigreegi Etoobiyaanka oo xukunka haystay xilliga u dhintay ninka leeyahay Axmed Xasan oo ka jigjiga inay dileen warkaas aniga waa ugu 99% marka cawka waan ugu daamarnaya askartan ku hormaraya nin waan idin sheegay waa nin kabtan dagaal ku galay laba darajo ku soo qaatay gaashaan dhaxo kaga soo baxay bilad dahabana ku qaatay madaaficida goobta waa jananka hadda xooga dalka jooga indha qarsho asaga marka intii hore kaga sheegay ku noqon maayo ninka kale jananka hadda ma sheegayo haddii xabad bilaabato ama Ethiopia isku bilown ama Kenya ama Eritrea markay xabadu kulaato bilowga waliba markay kulaato oo dhul kala qabsado baan janankii keen magaciisii iyo taariikhdiisii marka waxaan hadda ka hadlahayaa nin la yiraahdo Captain Ina Danyerow oo dagaalkii xidilo ku galay laba xidilo kaga soo baxay anu marka dagaalkii 7 waxaan jiray 12 sano iskuulka hoose dhaxan dhiganay ilmo yar baan ahaa dugsi quraan laakiin intii aan askariga ahaa oo sarkaalka ahaa ayaan waxyaalaha aan xiisan jiray waxa ugu weynaa dagaalkii 77 inaan saraakiisha gashay aad ula sheekaysto oo nin ka soo arkay raada iga sheekay say wax u dhaceen say ku guuleysateen maxaa qasaare in soo gaaray marka Ina Danyerow waxa iga sheekay ninka magaciisa aan ma aqaan aabihiis iyo awowgiis Ina Danyerow aabihiisa kale Danyerow la oran jiray marka asagana Ina Danyerow ninka waxa iga sheegay waligeena ma arkin waxa iga sheekay marka aan xidilta qaatay oo kulid jalsad ka soo baxay ayaa anagoo sagaal sarkaala ayaa waxa la kulid xero ka soo horjeeday xeradaas u lugay xeradaas la yiin bedelay xeradii markaan tagnay waana la kala bedelay aniga talihorin baa laga dhigay ninkii kabtanka talihorinka yaha Sheekh Yuusuf baa la oran jiray dagaalka samson uu galay isagoo xidigla wuuna ka soo baxay isagoo laba xidigla bilad qalina oo ku qaatay ninkan isku guutay ahaayeen ninkan Sheekh Yuusuf tali urur buu ahaa xidigla tali urur dagaalka 7 Ina Danyerowna asna tali urur buu xidigla uu ahaa iskuuloodna way ahaayeen xidigaas mar bay qaateen isku hal guutana way ka watirsan ninba tali urur buu ahaa saaxiibana way ahaayeen marka ninkaas ay iga sheekay marka Sheekh Yuusuf dabacad ahaan horta nin sheekhu ahaa oo haddana idin la hadlahayo xamar buu ka akhriyaa kitaabada isagoo hadda 80kii inuu ka weeymaan ka yareen 60kii 1960kii kitaabadii oo xamar ka bilaabay asaga wuxuu ka yimid qorrax iyo qabri dahare waa Sayyid Abdul Hasan bay nimankaas bay isku jifan yihiin oo wali jifo kore isku yihiin jifo hoose isku ma aha marka waa qorraxay qabdaro ku yimid asagoo nin sheekha xamar buu yimid marka kitaabu ka bilaabay ilaa saacadan masaajidkii buu wali fadhiyaa Sheekh Yuusuf alla marka Sheekh Yuusuf dabacad ahaan wan aad u dabacad kul laakiin wan aad daacad hadana waa way marka nin xidigla oo hadda kulid ka soo baxay oo markaas cusub nawaan ahaa nin yarna waan ahaa oo marka da'deedu waxay jirtay 18 sano baan jiray marka tali ururna way ahaa marka su'aasha markaan weydiiyay su'aalo badan oo hadda aan weydiin lahaa ama hadda xamar tago hadda nolol ku gaaro inaan weydiiyo aan jeclay oo ku saabsan Ina Danyerow maan weydiiyay sababtu waa ka baqay ninkan nin kulana uu ahaa taliyana uu ahaa nin cusub oo yar oo 18 jir oo marka xidig soo qaatana waa marka ana is ilaalinay inaan warkii ogaado inaan taariikhda wax ku ogaadana waa rabay inaan
aan qalad galo oo hadalka laga xirto oo leeyahay waad qaldantana oo su'aalaas maxad ii weydiiso leeyahay waxana qana ma rabin marka halka su'aal baan yaan weydiiyay Sheekh Yuusuf kabtanka taleeruka ahaa waana iska aamuso markaan warkii baan dhageystay marka dib dambe uma weydiin noloshayda inkastoo intaan sarkaalka aan wada shaqayn jirnay oo 2 sano ugu dambeysay aan dhigan jiray American language course dugsi oran jiray oo koorsa Mareykan aan helay أو سيدتي لحدينا كورسا مرايكان بان هلاي هذا مركي دولدو دعايسنا أنا متقن دكسيو كجرا لقدها اللي ورشد عانا كويا على دبر كذا أو أمريكان لانجويج كورس الأورنج راساكيش أمريكا كورسوين كلوسي ديارين شري لبدا سنة ما هني أنتي كلا ووضع شقيني صاحب قارن ووضع هنا أساق شيخ يوسف نين أدو في عنو أن شعل هنا وها لكن مركان سؤال شاويدي وأن سكول عصبين لفها يجانا وأبق marka intuu iiga sheegay baan in daanyaro kaga sheegeen in daanyaro qabiilkiisa wax su'aali ana weydiin ba kamaan weydiin laakiin waxaan xasuustaa inuu ugu yiri wuxuu ka yimid mudug reemudug buu ahaa hadda reemudugna waxa la isku dhahaa ilaa hobyo ilaa gaalkacayo ilaa xarar dheere ilaa maxaan ku raada ceel buur dhuusama reeb gura ceel balanbal caawdaq dhabad meelahaas aduu ninkaas intii gaalkacayo hobyo u xageeyaan buu ka yimid balanbalna u soo geesayo xaggana dhabad ugu xigto marka خاص أهان صومالي قبيل كها ما قرناي مركا إن دانيرو أسوأ كابتنا أيو سيدتني اللوادي سيد شخص إيش هاي أيو ملتري كرخص استي دبلو أب ما كان أمريكا يو كندا هذا ملك لوليا قرن مايو وانين هذا دايوس عن سيدتن كيرين سيدو مركي إيش هاي إسكدا بيا حياة سيد شخص مركا إن دانيرو أسوأ حدقلا أو تلي أورا أيو دغالكي قالي marka inta aan taatikadii tali ururkiisa oo ku soo caan baxay idin sheegin iyo sidoo amxarada ninkaas u galay anu horta raalaha la iga hado taraakiisha hore raalaha iga hada waxa laga yaabaa qari dhageysanay inay yiraahdaan rag baan naqaana in daanyaro ka caansan marka cabdirshid uu qabyaaladinay maadaama uu reemuduga yahay uu qabyaaladinaya anu xamar maan horta ilaa dhuusa mareeb ma dhaafin oo meel kale kama shaqeyn marka macallin baan inta badan xamar baan joogay hawlgalkii ugu fogaan dhuusamarey baan ku garaa marka dhuusamar wixii ka xaguli kama shaqeynay marka saraakiishii meelaha kale ka shaqeyn jirtay aan sheekadooda ma hayo marka raaliga ahad aniga intii aan xamar joogay wixii sheeka oo aan maqlayn baan ka sheekeynaya marka haddii adinku aad garanaysaan saraakiil kale oo ninka ka caansanaa haddii adinku ba ka sheekeeyo laakiin anigu in daanyaro ka sheekeynaya mana cidna ma dulminayo anu beenna ma sheegay in daanyaro marka waxaan ka hadlaynaa intaana ka hadlin dagaalkii wacdaga uga dhigsan zaman waxaan ka hadlaynaa sideetii labadii markuu ciidan kar qusaysanayay ayaa Sheekh Yuusuf kan ii sheekeynaya iyo asaga iyo rag kale oo saraakiil ayaa xamar waxa shiish baa la isugu baxay shiish sida Sheekh Yuusuf sheegay shiishka waxa macnaha arbiter ka ahaa ama shiishka waxa gudoominayay Morgan oo markaas gaashaan la sara ahaa deegaanka xamarna haysay daynila guuto joogta madaafiic goobtana taliye guuta ka ahaa daynina loo galay macnaha shiishka oo wixii saraakiisha xamar joogay ayaa inta ugu shish badnayd baa tartan la galay ciidan banin baa laga soo dooray marka Sheekh Yuusuf wuxuu ka qayb galay guutadana ragii ka socday ayuu ka mid ahaa asaga guutada ka socday oo markaas kabtan lahaa in daanyaro asna ka socda ciidan kale baasna yimid marka ragii saraakiisha ahaa si lambarada kala garan intaan ka xasuusto ii sheegaya horta markii uu Morgan uu shiishka uu saraakiishi u sheegayay waxa lagu shiistamayaa gacantaydaas afarta farood intooda hore bir leeg baa dhulka lagu mudaya meel bacaadaha lagu mudaya afartaas farood macnaha inta kore ayaa bir leeg baa waxa lagu mudaya meel bacaada marka sarkaalku qorigiisu haystaa bastoladna wuu haystaa marna waa qoriga marna waa bastolada marna asagoo ordaya buu inta yartaa shiishaya marna asagoo socda mar asagoo caadi u taagan mar asagoo jilba jabsan marna isagoo dhabacan marka Sheekh Yuusuf wuxuu yiri in daanyaro asagoo ordayo birta ku dhuftay asagoo socdana waa ku dhuftay asagoo taaganna waa ku dhuftay asagoo ma jilba jabsanba wuu hanqalocsada kaliya
laakiin jilbaba kuma faraysanba mana dhabacan oo jif cabeena xataa ma gelin taagnaan baa ayaa ugu dambaysay intiiba asagu wuxuu ku galay orod iyo socod iyo taagnaan mana jilba jabsan jif cabeena ma qaadan xabadka dhulka ma saarin number 2 buuna galay waxaa ku xigay shabeel asaga magaciisana ma qaan laakiin shabeel waan aqaanay October tan xamar wadamada jirnay asoo kabtan ahaan bartay waxa weeye marka shabeelna wuxuu galay number 1 shabeelna asagoo ordayo ku dhuftay asagoo socdo ku dhuftay asagoo taagan buu ku dhuftay isaguna shabeel wajilba jabsaday laakiin ma dhabacan asaguna saddex waxa galay niman u aqoon jiray anigu Abu Jahl laakiin magaciisa caadiga waxaan u malay inuu ahaa Maxamed la oran jiray Maxamed baan qiyaasahay gaashaan loo ahaa markaas shabeel kabtan buu ahaa xilligaas tii labadii ninkan Abu Jahl u naqaanay laakiin magaciisa ay Maxamed aan malaynayo inuu mac kale lahaana laga yaabe laakiin wuxuu caan ku ahaa Abu Jahl gaashaan loo ahaa shabeel wuxuu ka yimid dhuusamareeb iyo gurceel aniga asaas kuma isku carra ka nimid waa nin reer dhuusamareebeed macna nasabkiisaan ka hadlay ninkan Abu Jahlna wuxuu ka yimid Garowe iyo Boosaaso iyo Qardho iyo meelahaas iyo gaalkacyo laakiin ma kala garanayo kulay nimanka reer Puntland buu ahaa laakiin inuu ka yimid Qardho iyo inuu ka yimid Boosaaso inuu ka yimid Garowe inuu gaalkacyo ma kala qaan Abu Jahl baa u naqaanay gaashaan loo asaguna sida shabeel oo kale wasan sameeyay orod buu ku dhuftay socod buu ku dhuftay taagnaan buu ku dhuftay waana jilba jabsada laakiin ma dhabacan asaguna ninkaas saddex buu galay afar waxa galay niman aniga qaraabanahay oo maaxtuud maxamed sabarre nimankii gaaska ahaa oo koofi guud la oran jiray laba koofi guud baa jiray mid wada guduudan iyo mid dhexda ka guudan maxamed sabarre wardiisa markii dambe waa la isku daray waag hor uray ahaan jiray hadana guutooyin markii dambe waa la isku daray ayadoo gaasa markii hadda dawladdu dhacaysa ninkii xukumay waxa la yiraahdaa Cabdi Cismaan Nuur ninkaas afar galay sida uu sheegay Sheekh Yuusuf uu sheegay ninkaasuna waa nin reer balanbala asaguna oo asagu reegada ma aniga asaga isku meel ka nimid waa nin reer dhuusamareebeed oo haddana balanbal siyaada marka Sheekh Yuusuf wuxuu yiri anigu waxaan galay number 8 ninka shaqadan Sheekh Yuusuf oo qorx iyo qabdara ka yimid wuxuu yiri awga la jeenay Cabdirashiid anigu 8 baan galay laakiin ma rabin markaas ma jeclayn 5 iyo 4 iyo 6 inaan galaan rabay laakiin niman iga qatarsan baa helay marka asagu Yuusuf wuxuu galay 8 number 8 buu galay ina daanyeero marka waxaad garanaysaan ninka shabeelna lambar 2 dhigay Abu Jahlna lambar 3 dhigay Cabdi Cismaan Nuurna lambar 4 dhigay inuu san sahlan ahayn anagoo joogna ceel cade ayaa shabeel iyo ninkan Abu Jahl waxay yiraahdeen duufan waxa sameeysaa halkaas dhagax ayaa la soo qaado kor u turkana carar xagga dhabarka inta kor u turtay dhabarkana ku soo carar dhagaxii baan tuuray intuu soo socday basolada makaaraf ay gacanta ku haystaan iyo xabado qasnado waxay ku shiistamayaan intuu dhagaxu soo dhacayo 2 xabo 3 xabo ku dhufto baa lagu shiistamaya waa shabeel iyo Abu Jahl marna waa ku dhuftaan marna waa la waayaan macnaha hal xabo mar labo mar saddex marka marna waa la waayay marna ku dhufanayay waa dhagax yar oo la tuuray baa intuu dhulka imaanay lagu dhufanaya marka Soomaalidana labadooda uga qayb galay marka Masar lagu qabto mataqaashiishka Soomaaliya waxa aadi jiray ina daanyeero iyo shabeel iyo Abu Jahl sida Sheekh Yuusuf ii sheegay marka anigu waxaan aqaanay shabeel oo asoo kabtana markii ugu horeysay arkay iyo Abu Jahl asna gaashaan la markii ugu horeysay Cabdi Cismaanna waa caadi ma isku naqaanaaba asaga laftigiisa waxaan markii ugu horeysay arkay inuu kabtan ahaa baan u malay saasan qiyaasahay laftigiisa laakiin asaga qaraabadana waa caadi isu garanayna waxa weeye marka horta ninkaas Sheekh Yuusuf wuxuu ii sheegay intuu military Soomaali soo arkay ninkii ugu shishbadna inuu ina daanyeero ahaa aniguna sheekay iyo shaahid qof la iiga sheekeeyay iyo waxaan dhahayga saaray intaba
qof ka shish badan oo sarkaal ama askari ina daanyaro sheekana kuma maqal oo Soomaaliya shaahidna kuma arag waxaan galeynaa marka inta shiishkiisan kaga haraynaa waxaan galeynaa ina daanyaro ururkiisii am xaraad soo galay ina daanyaro taatikadiisii waxay ahayd si shaqo sheegay wuxuu sameynayaa abaanduulaha ururka oo xidig la ahaa ayuu dhiibayaa ururka wuxuu leeyahay ururka qaabkaas u dagalgelinaysa saaxiib xabada saacadaas bilaabaysa saacadaasna waa dhamaynaysaa intaas oo amar uu siinaya kadib wuxuu la baxayaa 9 askari oo askarta ururka ugu shish badan asaga 10 ku soo maaha wuxuu aadahayaa dhawr jabin ama dhalinyarada af Soomaaliga aad u qoray daawanaysa ambush ingiriiska taqaan ambush dhawr jabin wuxuu leeyahay amarka uu siinayo ninkan abaanduulaha oo xidiglaha waxa weeye askariga adishan oo Ethiopian waa tirnaysaan waa soo tirsanaysan aniga iyo 9 askari soo 10 kanaguna waa intaan dil waa soo tirsanayna waa isku la imaanayna ina 10 kanaga idin ka dil badnaano iyo adinku ururkiina intii ururkiina naga dil badnaataan ururka 620 askari way 620 waxa ka jirta iyo 10 askari ka jira 611 ayuu wuxuu rabaa ina daanyaro asagiyo 9 oo wato 10 koodu inay inta amxaara soo dilayo ururkan 202 iyo 11 inta dilaan inuu badnaado rabaa wuxuu challenge kula jira la baratamayaaba 611 nin asagoo 10 nin wata gudaha amxaaradu aadaya markay xabadu bilaabato ayuu dhabarjin bilaabaya asagoo Sheekh Yusuf wuxuu ii sheegay maalin kasta inta ina daanyaro iyo 10 ka 9 kala soo dilaan ya ka badan inta ururku dilo marka meesha la tooganayo waxa laga yaabaa inaad dadkiina askarta Soomaaliya shacabka inaad la yaabtaan ina daanyaro iyo 9 ka wato ina daanyaro iyo ragiisu meelan madaxayn ma tooganayaan ayagu wadna iyo xudun shaqo kuma leh qofka waxa laga toogtaa madaxa iyo wadnaha iyo xudunta macna xudunta iyo gumarka inta u dhaxaysa macna xudunta wixii ka horeeya ma wixii gumar ka hooseeyana ma xudunta iyo gumarka halkaas laga tooganaya saddexaas meel waa saddex meel qofka dhinta way nimankaanu wadnana ma tooganayaan ina daanyaro iyo 9 u wata askari xudunta inta ka hooseysa oo gumarkana ma tooganaya madaxa bas la tooganaya qofka Etoobiyaanka oo askariga ama ha ordahayo ama ha socdo ama ha taagnaado ama ha galgalanayo ama ha jiifo asay u taala meel aan madaxayn xabad lagu ridi maayo sidaas marka ina daanyaro maalba ururka 611 intay soo dilaan inta 10 ku jira ay u badnaayeen ina daanyaro marka bilad qalina uu qaatay xidig labaadna uu qaatay nimanka marka Ethiopia iyo Kenya nala ka celinay oo badana dhulkanaga iyo Eritrea oo badanada iyo dhulkanaga iyo dahabkana iyo shidaalkana inay qaataan rabaan anagu ragga saas u dagaalamaan hadaan Soomaalinahay ina daanyarona waxaan leenahay hadaad dhimataan Allah ku naxariisto hadaad nooshahana Soomaalida agteeda sharaf iyo qiimad ka leedahay aniga iyo wixii ila mid ahaayo saraakiil ama askar ahaan waxay mudan yihiin inay ka sheekeeyaan taariikhdaada oo ay Soomaalida baraan marka waxaad moodaa Ethiopia iyo Kenya Eritrea inay noo maleeyaan Soomaalidu dadan dhulkooda iyo badooda iyo birigooda difaacan karin iyo wadankooda inaan nahay dhul iyo bad iyo biriba bay noo qabaan laakiin Ethiopiaanku waa isyeelyeeliyana wayna garanayaan si fiican bay noo yaqaanaan haddii xabad bilaabato oo la isgalo inaan ka adagnahay Ethiopiaanku way garanayaan waxa laga yaabaa Soomaalida qaarkood oo ay xataa saraakiisha askarta ugu horeysa inay dhahan Cabdirashiid wuxuu joogaa 1900 Ethiopiaanku dagaal ma aqoonin hadda laakiin way dagaal barteen oo jabhaday sameeyeen oo su'aashaas cidii qabto oo ama sarkaal ama askari ama shacab waxaan u jawaabahay anaguba dagaalkii 2000 san u galnay ilaa hadda kama bixin wiilkanaga jira 15 sano ama gabadha jira 15 sano jirka oo gabadha Soomaaliya waa dagaalami karta qoriga si loo ridana waa taqaashiishkan waa yaqaanaan marka hadaad tababarateen Ethiopia iyo Kenya Eritrea anagu waa tababarnay hadaad ilaa 1900 dagaal ku jirteen waa ku jirnay annaga baan ka dagaal badnay oo
qabiil jilib isku leena حوي مركا عشرادي saraakiisha Soomaaliya ay Ethiopia u dhigaan haddana loo dhigi doono hadii Kenya joogi way Eritrea Ethiopia lafteedaba waxa kamid ah in Danyero kabtankaas markuu ciidan ka ruqsayay kabtankaas deeta labadii dagaalkiina xidilaha galay xidig labadii ku soo qaatay bilada qalinka saasa idin taala ama gaal cad haydin soo riixo ama carab haydin soo riixdo ama kuwa Soomaaliya oo adinka jawaasiisiidan ka idin ah oo xoogaa lacag siisan cadaqaata haydin ku yiraahdeen wadanka qabsada anaguna waa idin shaqaynaynaay oo mataqaan guriga iyo xaqeen haway marka anaga dhulkanaga cadaan iyo madow midna ma qaadan karo inta qof naga nool yahay gabadheed waa dagaalameynaa waxna waa iska celinayna waxaan ka warrabaa inaan ka sheekeeyo dagaalkii 77 markaan dhameeyo hadda waxaan marayaa janaa in qarshana waa idin sheegay kabtankii ina Danyero waa idin sheegay janankana waa idin sheegay hadii ay Eritrea ama Ethiopia ama Kenya soo weerarto xabad isku dhacdo baankeen ninkaas waxaan ku xijin doonaa hadii aan la yiraahdo saraakiisha saddex nin baan ka soo qaatay Ahmed Xasan Cawkaan ku xijin doonaa markaan dambe soo noqdo hadii aan la yiraahdo oo shacabka wariye ah ayaa soo noqodkayga dambe ka sheekeyn doona hadii la yiraahdo waxaan kaloo rabaa aan dagaalkii 1982 balanbal inaan asagana ka sheekeeyo maalintii ugu darneed dagaalkii balanbal la iskalay oo ugu xumayd waxa iiga sheekeeyay korneelka ayo hadda warkay ugu dambeeyay aan kaga sheekeeyay dharkeen geeyo ninkii korneelkii dharkeen geeyo iiga sheekeeyay oo mahmaahda ninkii gaashaan lahaay oo ahaa gabooyaha korneelkii ii sheegay oo saaxiibka ahay oo ba dagaalkaas ku jiray maalinkaas oo kuna dhaawacmay waa maalintii ugu qaraaray marka waxa hogaaminaya dagaalkaas General Cadiid oo markaas ba janan ahaa 82 oo dagaalkii 7 janamadii markii la soo baxay janamada qaatay kamid ahaa Cadiid maalinkaas laftigiisu dagaalkaas markuu aabulahayay oo intuusan maalinkaas amarka dagaalka u sabaxinin arin ayadana aad u qosol iyo mucjiso oo Cadiid sameeyay amxarada ku sameeyay taasna maalinkaas waa idin sheegayaa laakiin waa cawka markaan dhameeyno mid ku xigta shakada ku xigta 77 waxaan ka soo qaadanay janankaas iyo aan qariyay iyo janaan la qarasho iyo kabtan ina Danyero iyo cawki afartaas Ahmed Xasan Cawke marka Ahmed Xasan Cawke dagaalkii 77 qaybta kulaaya hadalka aan soo xiro waxaan galeynaa 1982 iyo balanbal iyo maalintaas ay ugu qararay dagaalku amxarada ma taqaana maalinkaas laga ma kicin amxarada laakiin maalmihii ka dambeysay Cadiid ka kiciyay ma taqaana General Cadiid ka kiciyay balanbal laakiin maalinta waa maalinka dagaalku ugu xuma laakiin Cadiid ciidankiisa maalinka waa laga adkaaday waa amxarada waa la dhaqaajin waay laakiin maalinka la isku riqday bay ahayd oo ninkan korneelkan oo saaxiibkan u dhaawacmay marka maalinkaasna waxaa jiray nin laba xidigla ahaa oo maalinkaas wacdaray ugu darnaa dagaalka balanbal ninkii ugu halisana ahaa baa asna ka sheekeyn doona oo ninkaana ay wada socdeen oo u dhaawacmay ninkaana marka ninkaas laba xidigla asna ka sheekeyn doona marka ugu dambaysa waxaan ku soo xiri doonaa nin anigu askari ahaa oo anigu aan aqaanay oo aan hawlgal isugu nimid ninkaas aan ku soo xiri doonaa ninkaas laftigiisu waa nin aniga yaabsan nin mucjisaab u ahaa aniga duufaanu aad iiga yaabsaday marka ninkaasna waa ninkan sheekada aan ku soo xiri doono 1907 iyo 1982 laakiin xilliga ninkaas arnay oo hawlgalka isugu nimid waa ka dambeysay 82 laakiin ninkaasu nin wuxuu ahaa mucjisa oo aniga xaggayga aad iiga yaabsaday marka asagana waan ka sheekeyn doonaa halkaas marka ku soo xiri doonaa sheekooyinkaas waxaan rabaa marka inaan taabto magaalada Xamar Muqdisho caasimadda Soomaaliya maalmahan ugu dambeysay waxyaalaha ka dhacay horta waxaan ka jecesinayaa qaraxii ugu dambeeyay oo dadka badan ku dhintaan inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto dadka Soomaalida oo qaraxaas lagu laayay waxa la sheegay idaacadu sheegayaan 14 qarax inuu hal bil gudeed ka dhacay bishaan hadda Maars Muqdisho
dhimashada iyo gumaadka shacabka Soomaaliyeedna ay maalin ka dambe sii badanayaan ayadoo ay saas tahay ayaa haddana oo cadowgeena gumaadaya ayaa haddana waxaan maqlahayaa dad dhahaya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya has casilo maanta xildhibaanadu waxay keeneen mooshin ay leeyihiin Prime Minister Xasan Cali Khayre has casilo nimanka mucaaradka waxaan leeyahay horta waan u gabyahayaa nimankaas laakiin hadda maanta uma gabyo maalin kale u gabyahayaa gabaygana saad ogtiin oo dhowr jeer idin sheegay ma gabyo oo nin gabay yaqaan miih laakiin 1973 gabay u tiriyay Cabdullaahi Dhoodaan oo aan gabaydiisa aad u dhageysto ninkaas ayaan ka qoray gabay u tiriyay oo ku haboon in nimankan loogu mahmaha mucaaradka ah oo ku haya maxamed cabdullaahi farmaajo haysa casilo iyo barnaamijka haysa casilo ayaan gabaygiisii baan u akhrinay oo warqad ku qoray waa idii warqad igu qoray miisku ii saaran yahay laakiin maalin kalaan yaan gabaygaas idii akhrin doona laakiin maanta waxaan ka hadlayaa arinta nabadgelyada xamar iyo sidee loo sugaa oo dhiig quban iyo gumaadka lagu hayo shacabka Soomaaliya xamar jooga sidee loo joojiyaa horta shacabka Soomaaliyeed waxay idin sheegayaa dad baa waxa laga yaabaa Soomaaliya inay aaminsan yihiin dadka xamar degan baa khaasatan la gumaadaya loo dan leeyahay inaysan saas ahayn ee qof kasta oo Soomaaliya oo magaalada xamar lagu arka la gumaadayo baan maanta idin cadeynaya kow markii Cabdulqaasim 2000 lagu soo doortay Djibouti 2000 dhamaadkeedii iyo 2001 ma qan bilowgeedii markuu xamar u soo guuray ninkii ugu horeeyay xamar lagu dilay oo jananka waxa la oran jiray wuxuu joogi jiray hogaanka howlgelintu joogi jiray waxa la oran jiray Yusuf Talan Cali wuxuu ka yimid meesha la dhaho Boorama nimankaas awal degan buu ahaa waxay qaraabo ahaayeen ninkan wasiirka ah oo maaliyadda Beyle wasiir Beyle qaraabo isku meel ka yimaadeen ninkaas wuxuu ahaa saan u maleynaya taliyaha xoog ayaa waxa ku magacaabaan u maleyn madaxweyne Cabdulqaasim Salaah Xasan baa wuxuu ku magacaabay taliyaha xoog inuu ka dhigaan u maleyn iyo wasiirkaas dhimidu ka dhigay maaqan aduu ninka jananka ah wuxuu ku jiray janamo Soomaaliya oo kaartada militariga hogaanka wuxuu haystayba howlgelinta markii dawladdu dhacaysay waxa la shaqeyn jiray Axmedii Qasaaro gaashaana sare ahaa oo riicadaada ahaa oo ninkii aniga ii bixiyay duufaankii Sancada sarkaalka Sancada duufaankii Sancada uu yaqaan macnaha miinisaan ka tirsan marba igu naanaysi jiray Axmedii Qasaaro oo asna hogaanka saraakiisha hogaanka ahaa howlgelinta oo ninkii kaartada u qori jiray janankan Yusuf Talan Cali marka wuxuu ku jira aqoon ahaan saraakiisha Soomaaliya oo looga dambeeyo kaartada dagaalka iyo dagaalgelinta iyo aqoonta military Yusuf Talan Cali wala dilay oo hadda ninkaas reer xamar mayn oo beelaha hadda xamar u badan ma ahayn waa idin sheegay meeshu ka yimid waxa la dilay maalmo dhaweed hadda aan bil ama laba ka badnayn Cismaan Boqorre oo gaashaana sare 64 ku dhaawacmay suu sheegay 7 ku dhaawacmay oo ka yimid Djibouti oo xildhibaan ahaa dawladda Maxamed Sabar markii xamar xoogaa nabadgelyo soo xumaanaysana yiri waxa la igu daray darisaynta macnaha xaafadiiba intaas oo qof ayaa dadka cusub oo xaafada ku cusub interview ka la yeelanaysa si nabadgelyo loo ilaaliyo ninkaas oo nabadgelyada wax badan ama ka ogaa ama haddaba ka qabtay ama baarlamaanka kala hadlay asna waa la dilay beesha xamar u badanna ma aha waa ninka Djibouti ka yimid waxaa saddex ka dhigtaa janankii la oran jiray Jilcow oo godka Jilcow lagu naanaysi jiray oo nabad sugidda ahaa oo godka Jilcow oo u dhawaa madaxtooyada markaad ka timaado ex baarlamaan aad ka timaado dhinacaas xagga Boondheere meeshii taaga ahayd meeshii ku ooli jirtay oo nabad sugidda godkaas ayuu wali inta badan xukumi jiray markii dambe
oo jananka uu qaatay waxaa laga dhigay gobolka banaadir baa gudoomiye looga dhigay duqa magaalada waa laga dhigay tagada xasan abshir haysan jiray oo duqa magaalada ah iyo gudoomiye gobolka banaadir baa la isugu daray in labadaba marka uu ahaa iyo inuu mid ahaa garamay laakiin waxaan hubaa inuu mid ka mid ahaa ugu yaraan ama labadaba uu ahaa janankaasna waa la dilay wuxuuna ahaa xamar dadka beesha xamar degta dadka wuxuu ahaa beeshaas oo xamar ugu badan ayuu ka dhashay waxaad garanaysaa marka saasaa waxaa kuu caddaynaysaa laba janan iyo korneyl oo midna ka yimid jabuuti midna ka yimid awdal iyo boorama midna xamar ku dhashay oo beesha xamar ugu badan ah dadka gumaadaya dilaya qabiilkan baaso annagu aan ka hadalnay iyo jilib helba iyo raa aan dhahno ujeedku inuusan ahayna waa soomaaliya dil inay tahay arrintu waxa la isticmaalaya wax dilaya cunug yaro basal loo sii dhiibay iyo telefoon iyo lacag la siiyay ama ha noqdo ama maxaan ku raahdaa qof kale ajnabi ah ha noqdo laakiin arrintu waxa weeye Soomaali weeye gumaad weeye arrintu marka dadkiina u qaba in reer xamar la gumaadayo arrintaas sax ma wada ku khaldantiin waxa la gumaadaya beel looma socdo qof kasto Soomaali waxaan la rabaa bad iyo bir iyo dhulka in la ka qaato intaas waa in waa qodobka labaad nabadgelyada xamar waxaa sixi kara shacabka Soomaalida macnaha ciidana ma sixi karo madaxweyne farmaajana ma sixi karo xasan khayrana ma sixi karo baarlamaanna ma sixi karo wasiirana ma sixi karaan waxaa sixi kara shacabka oo dadka gumaadaya iska qabta intaasna waa qodobka labaad oo haddii la rabo in xal la helo dadka gumaadaya shacabka Soomaali xamar ama qarax ku dilaya ama basoolada ku dilaya ama xabad ku dilaya waa in shacabku iska qabta haddaan shacabku qaban cid qaban karta male arrintaas oo faahfaahsan waxaan kugu sheegay 14kii qaraxii weynaa maalintu dhacay ma qanbil kadib masala bil kadib aan hadlay oo inaan sarkaal miinista ahaa oo xamar qaraxyada baari jiray oo wixii xamar qarxin jiray ay ahaayeen Robert Ogli safiirka Soomaaliya iyo Cismaan Caato inay ahaayeen waa idin sharaxay maalinkaas aan marka si fiican aan idinku sharaxay sida nabadgelyo wax looga qaban karo iyo in qaraxa in shacabku qabtan maahan dawlad inay qaban karin qaraxyada anigu aan xamar aan baari jiray shacabka soo sheegi jiray dadka meel soo dhigay marka taasna intaasaan ka leeyahay waxaan u soo noqonayaa qolada mucaaradka intaana u gabjin mucaarado waxaan idin leeyahay qolada mucaaradka waxaan idin leeyahay annagu markii laga soo bilaabo Cabdulqaasim 2000 dawladii Jabuuti lagu dhisay xamar la keenay ilaa saacadan hadda madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo madaxweyne Xasan Cali Khayran oo barnaamij yahay annagu waxaan miisaaminaa haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay anigu horta shacabka baan ka mid ah shacabkan u hadla anigu hadda askari mi sarkaal limi 30 sano ka hor baan askari sarkaal ah waxaas anigu waxaan oday shacab oo Soomaaliyeed shacabkan u hadlayo anigu inta badan afhayeen u ah anaana isku doortay shacabku ima dooran laakiin ana oday maadaama ana inaan shacabku u hadlo ana isku xilqaamay annagu waxaan xisaabinaynaa mucaarado Cabdulqaasim laga soo bilaayay Maxamed Abdullaahi Farmaajo ilaa Xasan Khayro oo baray Misra intii madaxweyne soo maray Cabdulqaasim ka soo bilow iyo intii baray Misra soo martay waxaan xisaabinaynaa waxay noo qabteen haddaan shacabka Soomaaliyeed iyo dalkan burburay oo la rabo in dib loo dhiso waxay ka qabteen qof walba wixii uu qabtay wax waan ka naqaanaa bartood haddaan ranayaan xogto dhan haynin laakiin wuxuu bartood waa ka ognahay wali odayaashu anu ugu daayarahay waan ognahay waa la soconaa waxaan idin sheegayaa marka ninna oran kara Cabdulqaasim baan oran karin Xasan Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariis baan oran karin Sheekh Shariif baan oran karin Xasan Sheekh baan oran karin ana qabtay shaqo ka fiican midda ina Farmaajo Maxamed Abdullaahi Farmaajo nama dhihi kartaan haddaad ma dhahdaan waxa idin leenahay waa beentiin Prime Minister ninka ugu fiicnaa wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Yuusufna sida hadda uu Xasan Khayre ay wax qabadkiisu ama u muuqdo ama u hirgalay uma hirgelin haddii asoo wax badan oo mucjisa u maaganaa laakiin ma shaqayn asagii dawladdu ka tirsanaa ma shaqayn laakiin asaga ninka waa naqaanaa taariikhda soo dhan baan naqaanaa qiimihiisa naqaanaa sharaftiisa naqaanaa waan u ogsoonnaa Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Cabdi Xaashiba iyo wixii la mida iyo odaygii la oran jiray muxuu ahaa Cabdulqaadir Cali Boola iyo ragga noocaas ah Professor Dalxa iyo
sakariye xildhibaanka raggaas waa doctor bayley waa ragga anigu aan aad u taageero way oo aan muslimnimada iyo Soomaaliya dadnimada aan macna ku tuhmayo way iyo wixii barnaamijka ka dambeeyay ninka la yiraahdo maxaan ku raahdaa Sharif soo madaxweynaha waxaan ka hadlay barnaamijradii barnaamijkan oran kara Xasan Khayr wuxuu qabtay ka fiican baan qabtana ma jiro dadna waa beentaaba yaan leenahay anaga shacab Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay madaxweyne Soomaaliyeed Cabdiqaasim ka bilow Xasan Sheekh ugu daba inta uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabtay baa idin ka fiican oo indhaha anaga aan ku aragnay waxaan idin leenahay inta barnaamijka soo martay oo hore oo mucaaradkana ah haddana dhahaysa Xasan Khayr hays casilo ama Maxamed Farmaajo madaxweynaha casilo waxaan idin leenahay inta Xasan Khayr qabtay baa waxaad qabateen ka fiican qolada ayagu ama wasiirra ama xildhibaanada oo hadda dhahaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hays casilo madaxweynaha kursiga ka dow ama barnaamijka Xasan Cali Khayr ka dow kursiga barnaamijka waxaan leenahay haddaad hore u soo shaqayseen oo ahaydeen wasiirro ama xildhibaano ahaydeen taariikhdiina waa naqaana nin xildhibaan soo maray ama wasiir soo maray oo Xasan Cali Khayr iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka taariikh fiican ma jiro hadduu yiraahdo waa jiraan waxaan leenahay waa beenta saaxiib raadinayo haddaan leedihiin mucaarad baan nahay anu mucaaradkan la hadlay kuwa xamar jooga kaliya ma waxaan la hadlay mucaaradka qurbaha jooga iyo mucaaradka Soomaaliya jooga meel kasta ka joogan haddii rabaan Djibouti iyo mataqaana Awdal iyo Boorama iyo Hargeysa joogan ama Jigjiga iyo haddii rabaan Gaarisa joogan mucaarad oo dhan baan la hadlay oo Soomaaliya meel raba ku noolaade waxa idin sheegayna haddaadina weligiin jaga adina qaban madaxweyne iyo barnaamij iyo wasiir iyo xildhibaan laakiin hadda leedihiin waxa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qabanayo iyo waxa Xasan Cali Khayr barnaamijka uu qabanayo wax ka fiican baan qabanaya ee kursiga la iga dejiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha rabaay ama hal iga dejiyo Xasan Cali Khayr barnaamijka baan rabaay waxaan ku leenahay ku dhihimayna ma qaban kartid wax ka fiican iyo wax la mid ah laakiin erey ka culus baan ku leenahay oo salka uu ku dhifto oo faraha ka qaad arinta isaga diiso haddaan madaxweyne rabtid baan tartaw waxaan ku leenahay iyaga waxay qabanayaan waan naqaana 2 sano inoo soo shaqaynayeen 6 bilood buu barnaamij ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaaliya waxay dibadaha joogay wixii dalka joogana waa ninkii inta noola ugu badnaa oo siyaasi ah madaxweynaha barnaamij oo inta Soomaaliya u soo banaan baxay weligii ma arkin sheekana xataa kuma maqal waxa weeye marka lama tartami kartaan oo ninka 6 biloodna lama tartami kartaan wuxuu qabtay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadda 2 sano wuxuu qabtana kulama tartami kartaan soo wuxuu qabtay waan aragnay indhahana ku arag laakiin adigu waxaad qaban doonto hadee ma naqan ka xaqir mayno oo kuma lihiin ama kama aqoon badnin ama kama quality fiicnid ama wuxuu qabtay ma qaban kuma dhahan laakiin waxaan ku leenahay asaga waan aragnaa maadaama hadda aan aragno qof aan aqoonin wuxuu qaban doono oo inuu qaban doono wax ka fiican inuu wax la mid qaban doono wax kaliya inuu qaban aan aqoonin waxaan ku leenahay hal iska xilliga iska sug laakiin kuuma raacsan kan yeelimayno kursiga nooga dawo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kursiga nooga dawo Xasan Cali Khayr ka yeelimayno waxaan ku leenahay waan diin nimankaas anigu waxaan qabaa kursiga inay dhameystaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Khayr 2 sano u dhiman haddana waxaan qabaa afarka in loogu celiyo 8 sano Soomaha waxaan qabaa haddana Xasan Cali Khayr madaxweyne loo doorto 4 sano haddana markuu dhameysto afarka in loogu celiyo 4 sano kale waxaan kala hadla oo kala raacinaya doctor Bayle dad baa waxay leeyihiin canshuurta xamar wax kuma lahane intuu Awdal tago iyo Boorama ha ka soo qaad canshuurtiyo ha nagu darsado oday baan maqlay bakoro madow meel hadlayo lahaa anigu xamar baan ku dhashayo beesha xamar u badan baan ahayo canshuurta xamar waa joojinay lama qaaday ana amar bixinayo doctor Baylena waxaan leeyahay orod Boorama aado canshuurtii kan canshuur nagu darso odagaas bakoro madow waxaan ku leeyahay adeer bakoro madow waxaan ku leeyahay canshuurtii wuu keenay reer Booramana waa keenay canshuurtii xamar oo Soomaaliya kula waa keenan doctor Baylena wuu keenay waxaan aqoonin taariikhda reer Awdal baadan garanayn odagaagan bakoorada madow oo xamar baan ku dhashay anu reer xamar baan ayaa beesha xamar u badan baan ahay adeer taariikhda reer Boorama garan mis ma taqaan waxa kama garanaysid Soomaaliya 60 ilaa hadeertan waa halka jilib halka qabiil oo Soomaali ah oo wax khayr ama hana wax shara aan Soomaaliya ku soo darsan way nimanka degan Boorama iyo Awdal oo ka yimid doctor Bayle channelka hadda aan ku sheegayo xamar lagu dilay oo Yuusuf Talan Calin ayuu ka dhashay
cidaas anigu waxaan u aqaanay dadka taariikhda Soomaaliya yaqaana dadaan weligood khayr ma ahana Soomaaliya aan wax shar u keenin hadaa marka ama taariikhda soo baro ama naga aamus oodan boqorada madow canshuura joojin kartana male canshuurta dad joojisana waxa weeye canshuurtu adiga xamar jooga oo nabadgelyada lagu sugaa oo ina shaqo ma taqaana lagu diyaariyo oo meel ka shaqaysta lagu diyaariyo inta wadanka nabad laga dhigo aday ku anfacaysa hadii xamar ay bugti qacdi ma taqaana dhibaato ku jirtana waa adiga waxa gurigiisu ama qarxaya ama ma taqaaso dariiqa maray la dilaya marka khayrkana ada ugu soo horeynaya xamar shartana ada ugu horeynaya marka nina gurigiisa ma dhaho canshuurtii lagu hagaajin lahaa waan joojinaya Dr. Belena waxa uu filan canshuur aqoonta uu kuula yimid oo PhD da oo asagoo America chiifa oo asagoo xafiiska fadhiya loo shaqeynayo oo dadnimadiisa iyo Soomaalnimada dalkiisa inuu burburay soo aqoonta soo dhiso oo riskigaas iyo qaraxaas uu u dhex joogo intaas ugu filan canshuur u dhiibo xaqna uma laha in la dhaho ana xamar ku dhashay ana xamar beeshayda ugu badan orod canshuur noo keenna xaq uma leh waxaan leeyahay xal iyo cimaamad ana ku saaray Dr. Belo waana ku salaamay oday boqor madow daada hadda joogtina loo baahna waxa ku hadlaysa inaad ku hadasho hadda daadaada iyo aniga daadeeda wixii oday oo garcad waxa loo baahan yahay Soomaalida iyo Muslimka inuu soo urur isku dhaweeyo inuu dadka kala cayriyo iyo inuu balaayo iyo abuuro waxaan loo baahnayn iyo cadawtinimo iyo canshuurta ana iskala orod baro kale warkaas war odayeed ma waa war ma taqaan qaldan way marka nooga jooji carruurta yararka oo ma taqaan qalbiga dhaga ka wasaqaynaysa waxa weeye marka waxaan leeyahay 8 sano markuu dhameystay ninkii leeyahay Xasan Cali Khayrana madaxweynimo 8 sano oo cusub hala doorto Dr. Beyle صدّن كاسانو maxaa farmaajo oo 8 sano oo ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayra ma qaway 16 sano 8 sano ugu dar oo Dr. Beyle oo madaxweynimo 24 Soomaa 24 sano inay qaataan aan u rama nimanka saddexda marka mucaaradka xooga saaraya inuu farmaajo kursi ka dago maxamed Abdullaahi farmaajo iyo inuu ka dago kursiga baramtarka Xasan Cali Khayra iyo inuu Dr. Beyle canshuurta ka soo qaado Buuram jawaabtaas ay siinaya 24 sano oo 8 sano madaxweynaha baaman aniga wixii ugu fikir aaminsanahay waxaana u leenahay waxay noo qabteen 2 sano iyo 6 bilood wuxuu noo qabtay maxamed Abdullaahi farmaajo حاول مركا قفكي دين له أو ضمنما يكون شرطه أو إن ضمير ير أو ليه أو شقينا حاول قفك الربح إنه وطن كان بربري سوء عليه وضمنما ديسي أو هذا ذكر عدو إنه جماعة يا وشيد كإنه جماعة واحد تنا لما يعني وطن كان يقاتان وطن كان وحل سودري الدنيا ده عالم كذا وحياة الشيء وحكمله الدون كوطن كوه خيرات بينه الصومالية ماشي الدون كي ربان إنه وطن كنا يقاتان بل الدون واحد تاجن تاعي حمر بان كل شيء باش إذا حمر تاجنه بيله هذا ماشي اللي يراهدو